maanta iyo Minnesota laanta dambi baarida ee wadanka Mareykanka ee loona yaqaan FBI ayaa xalay waxa guriga ugu dhacday 5 qoys oo Soomaaliyeed. qoysaskaas oo ay ka qaadatay dhammaan elektarooniga sida taleefanada, kombiyuutarka, gawaaridii iyo wixii dahab iyo cash guriga yaalay. haddaba yaa ka mid ah dadkaas waxa اوكي وبلاوي يا برنامجك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أنت مقعي موقعي تقانب الشعب الصوماليات مالك السجوكتان ولكن عبد الحكيم عثمان نور وكما غير شيخ صومالي اي حرت الشيخ من يابلس من صودا. انت النعبي، انت يجعل، انت التاجرسن، انت يسهر جدا لما انتين وحال الكود السلام يا سلامة السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muxuu ku saabsan yahay barnaamijkeena maanta iyo Minnesota laanta dambi baarida ee wadanka Mareykanka ee loona yaqaan FBI ayaa xalay waxa guriga ugu dhacday 5 qoys oo Soomaaliyeed. qoysaskaas oo ay ka qaadatay dhammaan elektarooniga sida taleefanada, kombiyuutarka, gawaaridii iyo wixii dahab iyo cash guriga yaalay. haddaba yaa ka mid ah dadkaas waxa ka mid ah qoysaskaas guryaha loogu daatay xalay qof community Soomaaliyeed aad iyo aad looga yaqaano waa Cali Ganay oo ahaa xoghaynta Ilhaan Cumar. xalay in adeerka Cali Ganay waa la galay gurigiisii isaga iyo xaaskiisii kulli wax walba waa laga qaatay, taleefanka waa laga qaaday, gawaaridii waa laga qaaday. marka dadkaas 5 family ee xalay loo galay waxa ka mid ah Cali Ganay oo isagu laga qaaday taleefankii, gaarigii ilaa iyo dahabkii gabadha laga furtay maashidaya. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u yasiro. arrintaas xalay dhacday. 4 kalena waa 4 gabdhood oo iyaguna isla family ah oo familiyada Minnesota Soomaaliyeed iyagana guryaha loogu daatay, wax walba laga qaatay. waxa soo galay khad kamida fartii la daba socday ee raashinka caruurta. sidaa darteed 5 qoys ee Soomaaliyeed ayaa xalay iyaga guryaha loogu daatay. waxaana loo daba socdaa kiisaskaas inaad taa ogaataan. number 1 Ilaahay soo fududeeyo. inaga qof magac leh baa ku jiro community-ga aad looga yaqaano waa walaalkan Cali Ganay. xaaladaas waa ta labaad. Soomaalida Minnesota arrin aydan ogey, hooyooyin badan iyo aabayaal badan iyo qof kasta ayna ogeyn ayaa jirta. haddana loo baahan yahay inaad ka wada hortagtaan oo dhibaato weyn ay idinka imaan doonto. maxay tahay arrintaas? waxaa jirta, waa ogtihiin, qof waliba xawaalad ayuu ku xidhan yahay oo lacagta ka darsada. xawaaladda markii aad tagasay ee aad lacagta darsanaysay waxaad dhiibtay ID-gaaga, sharcigaagaad dhiibtay, taleefoonkaaga, socialkaaga. yacni marka lacag badan la dirayo waa telefoon baa la buuxiyaa. xawaaladdaasi waxay haysaa dhammaan all your information. haddaba xaggee ayay wax ka khaldameen oo ay wax ka jiraan oo aan rabaa maanta dadka Soomaaliyeed inaan baraarujiyo. xawaaladihii kulligood ma wada aha. xawaaladihii qaar baa waxay sameynayaan khalad aad iyo aad u weyn oo sharci darro ah, qof kastana dhibaato uga imaanayso. dadkii customerka u ahaa ee ku jiray systemkooda ayay magacyadoodii lacag ku dirayaan oo lacag dad kale leeyahay lagu diraya. sidaa darteed haddii uu kugu soo dhaco message lagu leeyahay adoo hebel ah lacagtaadii waa la diray, waa in aad xawaaladii aad ka diri jirtay tagtaa, qofka lacagta loo diray iyo cadadka loogu dirayna aad ogaataa, weydiisaana sababta magacayga qof uu isticmaalay. that's number 1. waxaa jirta marbar aanu message-kaasi kuu soo dhacaynin oo lambar hore oo aad lahayd ay isticmaalayaan xawaaladii. dad badan ayaa lacagayo doonaya inay u saaraan dibadda. sidaa darteed waa dadka arrimahan raashinka waxaa ku jira lacag badan ayaa wadanka ka baxday. dadkii 2 qaybood bay hadda u kala baxeen. dadkan cash-ka haysta qaarkood xawaaladihii bay hortaagan yihiin, waxay ku dhahayaan 15,000 ama 20,000 ee dollar baan dirayaa walaalo gacali aan magacaaga isticmaalo, 3,000 ee dollarna iga qaado oo iga dir. qaybina waa qayb kale oo taas adaaba qofka isaga qaata 20,000 inta loo dhiibo la yiraahdo 3,000 qaado oo magaciisa lacag lagu diro. isaga qofkaasi bareeray oo hadhow qaatay isagana ka jawaabi doona. laakiin xawaaladihii baa waxay sameynayaan qofkii customerka ah ee systemka ugu jiray
ayay magaciisii ku dirayaan lacag laba arrimood baa markaa jirta qaar maasijaal hadda wiil iyo gabadh aan arkay maasijaal soo dhacay maanta madaxa waxay iskula jiraan baraanjigii xawaaladee madaxa iskula jiraan maasijaal soo dhacay khaladka uu ninkaas xawaaladaasi sameeyey waxay ahayd in lambarkoodan cusub uu geliyey oo aanu lambarkoodii hore gelin gabadha waxaa lagu diray lacag gaaraysa $22,000 wiilkana waxaa lagu diray $30,000 kii xawaalada iyo gabadha iyo wiilkii maanta madaxa iskula jiraan maasijadii baa u soo dhacay qofka ay lacagtan u direen ma garanayaan ninkii xawaalada iyo dadkii waa isqabsadeen hadda arrintii waxay gaadhay in ummad yani la kala dhex galo oo waa lagu dhex jira sidaa darteed qof kasta oo Minnesota degan ama Maraykanka degan hadduu maasij uu ku arko telefoonkiisa xawaalad hebel ay soo dirtay oo ku soo dhacay waa in aad tagtaa xawaalada lana xisaabtantaa ogaataana qofka lacagtaas loo diray wuxuu yahay haddii aanu maasij kugu soo dhicin ogow lambar hore oo aad lahayd oo systemka xawaalada ku jiray ayay xawaaladahaas isticmaaleen qof kastoo xawaaladii aad lacagta ka diran jirtay tag digniinna sii baranji kasta oo aad ka diran jirtay tag digniinna sii waxa aad tiraahdaa shukri cusmaan meel baa gubanaysa waa qof aad iyo aad meel u gubanaysa markaa balood baan saaraya wixii hadda ka dambeeya waa dadka hawrahan ku jiray in la taabtaabto ma ogola marka balood baan saaraya marka labaad ay soo noqoto sidaa darteed qof kasta oo Soomaaliyeed oo gobolka Minnesota jooga maanta waxaan ku boorinayaa inay xawaaladaha tagaan meeshii uu lacag ka dirsan jirayna ee sharcigiisa haysay ee uu ku jiray uu u sheego haddii magaciisa lacag lagu diro inuu la xisaabtami doono arrintaani arrin la dhayalsan karo ma aha arrintaani arrin la dhayalsan karo ma aha arrin la dhayalsan karo ma aha qof kastoo Soomaaliyeed oo gobolka Minnesota degan yaan dhibaato aadan adigu samaynin lacag aadan waxba ka ogeynin wax aadan waxba ka ogeynin inta magacaaga lagu diro hadhow yaana dhibaato kaaga imaan nimanka haddaba iyo dadka xawaaladaha haysta mid baan iyagana ku boorinayaa maanta waxaan ku boorinayaa oon u sheegayaa in ay dhowraan ixtiraamka iyo sharafta dadka customerka ee wax ka tirsado inay dhowraan weeye oo aanay dadka sharciyadooda isticmaalin qofkii arrintaasi ku dhacdo ee Soomaaliyeed ee arrintaasi ku dhacdo ee magaciisa lacag lagu diray xaq wuxuu u leeyahay inuu xawaalada intuu tago rasiidka soo qaato message-kaas uu haystay uu report gareeyo dawladda oo uu yiraahdo anigu kama ogeyn hadda ka hor ayaa waxaa dhacday gabar aan anigu adeer u ahay magaaladana maanta inala joogto ayaa iyadoo joogto Caribbean-ka oo jaamacad dhiganaysa ayaa $60,000 magaceeda lagu diray $60,000 gabadhii markay magaalada timi arrintii ay ogaatay tii ka dhacday ilaahay baa ogaa arrintii waxay socotaba waa la xalliyay laakiin waxaa ka dhacay arrin aad iyo aad u weyn oonan rabin hadda inaan dadka badana halkan la wadaago sidaa darteed ummadda Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed ka waran adigoo section 8 ku jira adigoo low income ku jira adigoo barnaamijyo kale iskaga jira haddii $50,000 magacaaga lagu diro qof aadan garanayna loo diro baaritaankan socda xalay habeen barkii bay ahayd markii loo galay in adeerkii Cali Ganay familigiisii iyo 5 family kale ee Soomaaliyeed family kale Soomaaliyeed loo galay xalay habeen barkii bay ahayd ka warrama adigoon waxba ogeyn baaritaankan socda uu soo galaya xawaaladaha wuu imaanaya xawaaladaha qof kastoona intii qof ee customer aad u ahayd ee lacag u diri jirtay ee familygaaga ah waad u diri kartaa laakiin qof aan familygaaga ahayn oo lacag $50,000 $60,000 $100,000 loo diray iyo wixii la mid ah loo diray
mas-uuliyaddeeda hadhow aday kugu soo xaroonaysaa qofkii isagu u bareeraya dadka taagan xawaaladaha bannaankooda ee ku dhahaya 3,000 baan ku siinayaa walaalo magacaaga 20,000 iigu dir qofkii u bareeraya isagay u taallaa laakiin miskiin hooyo ah oo ilmo korsato oon waxba ogeyn iyo aabe aan waxba ogeyn iyo gabadh iyo wiil aan waxba ogeyn oo taraag iska saaran magacooda yaa la damaj karayn ummadda islaamka ana yaa dhibaato loo keen ummadda Soomaaliyeed aynu isdhageysano qolooyinka xawaaladaha idinkuna walaalayaal sharciga ilaaliya marka insha Allah barnaamijkeena maanta saas ku saabsan yahay labadaas arinta xalay dhacdayna waa idin la wadaagay arintan kale ee xawaaladahana qof kasto maanta xawaaladii aad lacagta ka diran jirtay tag lana xisaabtan una sheeg waxa ku tiraa walaalow ama walaalay hadii magacaygaas lacag lagu diray aan arko oon ehelkayga ahayn waa dacweynaya qolooyinka xawaaladahu arintan waa ka shafatay laba qof ya soo far hadda banaanka fadhiya Soomaaliyeed oo maanta arintan ku dhacdo maanta ogaaday wiil iyo gabadh ba arintan ku dhacday waana jirtaa in xawaaladaha la hortaagan yahay oo lagu leeyahay kaale 20,000 iyo 30,000 dir dad badan ayaa lacagta akoonadii kala soo baxay oo guryihii la fadhiya oo qasnada geeyay guryo badan geeyay meelo badan lagu kala xaseeyay oo kaashash badan soo saaray sidaa darteed wixii waxa la rabaa in dibadda loo saaro life baan ku jiraa oo soo wacaya bilis sidaa darteed arintaas jirta cid walba ha ogaato aad baan dhamaantiin idin salaamayaa meel kasta joogtaan shacabka Soomaaliyeed maanta iyo Minnesota bas waa waqtiga la iscarfin jiray banaanka la aadi jiray dadada Armani Cop bas kana waa fresh farsaaj baa la yiraahdaa النظافة من الإيمان ما شاء الله بارك الله يهاي أدب دمانتي الذين سلام يا ملك السجوكتان شعبك الصومالي قبل كمينيسوتا حالته عركة كشريرنتا حالته عركة كشريرنتا أرنك لا أوكي ياب له بان الدين شيء يا وحيالها ضدك الصومالية مستيق وحن يا خالدك وحن أي سميين وحايتها فهمني الآن أيام ما أنت وحي قليان كرمنا wiilkii gabadhii yani odaygii islaantii kulli sababta islaantii waxay qaadatay guri $800,000 waxayna ku qortay wiilkeedii oo laga yaabo xitaa inuu criminal record u leeyahay ama gabadheedii oo aan waligeed ba shaqayn ayay ku qortay gurigii $800,000 kamaysan fakirin lacagta wiil ma hayare halkuu ka keenay baa la oranayaa jeeg ayaa halkan looga soo qoray qolo kale uga soo qortay wiilkii iyo gabadhii bay ku qortay xaaladdu aad iyo aad bay u cagaran tahay soo far xitaa 3 family oo kale oo caruurahooda oo aan shaqaynin guryihii ku qoray ayaa jira sidaa darteed xaaladda gobolka Minnesota aad bay u kacsan tahay mana fiicna qof kasta oo Soomaaliyeed waxaan maanta idinku boorinayaa oo magaaladan ku nool xawaaladaad lacagta ka diri jirtay tag lana xisaabtan oo waxaad tiraahdaa magacayga wax lacaga haddaad ku dirtay oo aan kii anigu aan ka diri jiray ahayn adaa mas'uulka ah aad baan dhamaantiin idin salaamayaa meel kasta joogtaan shacabka Soomaaliyeed وولكن حتى شيخة ما أنت يا Minnesota وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله